بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإيمان. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإحسان. ilaahay ayaa ku mahadsan sanadkan 1443 noogu dhameeyay gabagabadiisa daan marayno inagoo caafimaad qabna. allah subxaanahu wa tacaala goor waliba waxaanu ka baryaynaa in uu nahuriyo naxariistiisa, noona dambi dhaafo, isla mar ahaantaana uu naga mid dhigo addoommadiisa uu ka xoreynayo naarta, waalidiinteenna iyo inta muslimiin ee naga hortagta intaba insha allahu tacaala. walaalayaal, waxaan maanta usoo galay inaan halkaan idinla wadaago arrin yar oo ku saabsan soonka, faa'iidada uu inoo leeyahay innaga caafimaad ahaan, iyo abaalmarinta allah subxaanahu wa tacaala uu inoogu yaboohay in addoommadiisa muslimiinta ee saa'imiintahi uu ugu abaalgudayo qiyaamaha. waa maalinta abaalmarinta. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi xadiid ka mid ah axaadiista qudsiga: ina kula camal ibni aadam lah ila soom fa inahu lii wa ana ajziu bih. acmaasha aadamiga ama ruuxa aadanaha uu samaynayo kulle isaga ayaa iska leh abaalkooda wixii uu la yimaado. hase yeeshee allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi allahan kor ahaaday, soonka aniga ayaa iska leh, aniga ayaana ka abaalmarinaya ruuxa sida loogu waajibiyey u guta soonka bisha ramadaan ee markaysa. marka soonka sidiisaba waxaa jirta sunnooyin fara badan oo aynu samayno, sida maalmahan tobanka muxuu ahaa dilxij, maalinta carafa, allah mustacaan, khamiista iyo muxuu ahaa iyo isniinta soonkooda. marka waxaa jirta muxaram. marka waxaa soonku uu fara badan yahay oo sunnooyinka ah. marka faa'iidooyin fara badan ayaa inoogu jirta annaga ka diin ahaan, haddii aanu nahay dadka muslimiinta ah. faa'iidooyin fara badan ayaanu ka helaynaa, waayo qofka maalin keliya u sooma allah subxaanahu wa tacaala dartii u sooma, ilaahay wuxuu ka fogeynayaa naarta 70 gu ayuu ka fogeynayaa. marka wax la heli karayo maaha. taasi haddii aanu ka nimaadno xagga diiniga ah, haddii aanu ka nimaadno, bal aanu nimaadno xagga caafimaadka ah iyo cilmiga casriga ah. muxuu ku sheegay soonka ay soomaan dadka muslimiinta ah, faa'iidooyinka laga helayo muxuu ku sheegay? aan soo qaadan marka daraasad dhowaan ay sameeyeen culimo fara badan oo ka mid ah culimada iyagu wax ka dhiga jaamacadaha ugu caansan dunida ee ku yaala wadamada Mareykanka, Jarmalka, Jabaanka, Ingiriiska, Australia. daraasad ay sameeyeen ama research ay sameeyeen oo ay ku baarayeen soonka. maaha soon kasta, maaha soonka cunada qaar la iska cunayo qaarna la iska cabayo, maaha oo cunada qaar inta laga soomo qaarna la iska cunayo, maaha. waa soonka muslimiinta ah ee 12 saacadood ama 14 saacadood ama 16 saacadood la soomayo, ee laga joogsanayo cunada iyo cabitaanka gebi ahaanba laga joogsanayo. culimada casriga iyagoo dabagelaya daraasadaas ay sameeyeen maxay ku sheegeen? waxay ku sheegeen culimadaasi daraasadaas oo dhowaan soo baxday oo la qoray oo laga heli karo muxuu ahaa internetka laga heli karo, ama bogaga ay leeyihiin jaamacadahaas waaweyn ay leeyihiin. waxa ay ku sheegeen soonka ruuxa marka uu soomo 12 saacadood si istaba joog ah, weliba soonka qaabka ay u soomaan dadka muslimiinta ah, in salisyada ama unugyada jirkiisa ee xagga difaaca u qaabilsan in ay kordhayaan. markay kordhaana unugyadaas ay bataanna waxa ay bilaabayaan in ay la dagaalamaan unugyada kale ama saliska kale ee jirka aadamiga ku fidinaya bakteeriyada, oo ay ka hortagayaan. halkaana waxaa ku baaba'aya cudurkii ay fidin lahaayeen salisyadaasi kale ayaa halkaas ku baaba'aya. marka
researchigooda culimmadaasi waxa ay ku sheegeen ee aan muslimiinta aan ahayn ee dhaqaatiirta iyo barofesorada wax ka dhiga jaamacadaha dalalkaas aan soo sheegay ku yaalla waxay sheegeen in soonku uu yahay sayidkii dawooyinka oo looga hortegi karayo cudurrada ku dhaca jirka aadanaha. daraasad kale oo ay sameeyeen ninka qoray oo isna wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka magaciisa la yiraahdo Professor Lungo waxa uu ku sheegay qormadiisa isagoo soo qaadanayay daraasadii la sameeyay iyo wixii ka soo baxay maxsuul ka soo baxay isagoo soo qaadanayay wuxuu sheegay in ruuxa aadanaha marka uu soomo 3 maalmood oo isku xigta soonka islaamiga 3 maalmood isku xigta marka uu soomo waxa uu yiri waxa si buuxda u dhameystirmaya qaab dhismeedka ee difaaca ee jirka si buuxda ayuu u dhameystirmayaa yiri. markaas sii wadana marka anagu soonkeena waa 30 maalmood soonka bisha Ramadaan ee barakeysan sunnooyinka kale markaan ka harno macnaha waxaan ka hadlaynaa soonka rasmiga ayaan ka hadlaynaa ee Allah uu nagu faradiyay. marka wuxuu yiri 3 maalmood markii qofka uu soomo faa'iidada uu ka helayo wuxuu yiri jirkiisa ee dhinaca caafimaadka aniga laftayda oo kamid ah barofesorada daraasadda sameeyay ayaaba rumaysan la ayuu yiri macaanka iyo dhadhanka iyo faa'iidada uu ka helayo ruuxa muslimka ama ruuxa sooma. wuxuu yiri waxa si buuxda u dhameystirmaya unugyadii difaacaya jirka si buuxda ay u dhameystirmayaan markaas waxay bilaabeen inay cunaan oo ay la dagaalamaan unugyada kale ee fidinayay muxuu ahaa cudurka fidinayay. marka wuxuu yiri adiga oo sooman oo ku dhex jira soonkaasi haddii waa sida daraasadda uu ku sheegay aad dareento gaajo aad dareento wuxuu yiri waxba ha ka walwalin waa wax lagu farxo ayuu yiri maxaa yeelay wuxuu yiri unugyadii daafacaya jirka ee cudurrada ka ilaalinayay ayaa waxay awood u yeesheen inay gam ka dhigaan salisidii muxuu ahaa bakteeriyadii jeermiska ku fidinayay jirka ayay ku guuleysteen uu yiri. marka wuxuu yiri haddii adoo sooman aad gaajo dareento waxba ha ka walwalin waa arrin lagu farxa ayuu yiri waa sida daraasadda ay ku sameeyeen. marka Professor Lungana wuxuu ka mid yahayba dhaqaatiirta waaweyn ee dalka Mareykanka ee wax ka dhiga waliba wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee isagu bugtadiisa ku daweeya bugtadiisa waa kuwa kansarka qaba cudurka kansarka qaba Allah inaga haye ruuxa ku daweeya weeyaan soonka oo bugtadiisa iyagu lagu arkay ama lagu sheegay kansarka wuxuu haatan ku daweeyaa professorkaas ee la yiraahdo Professor Lungo wuxuu ku daweeyaa soon ayuu ku daweeyaa cajiib subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala wax waliba dan ay noogu jirto ama maslaxad ay noogu jirto isaga ayaa naga og isaga ayaa og jirkan markuu abuurayay qalfoofkan markuu abuurayay markuu sida naga dhigayay waxa ku imaanaya waxa looga badbaadayo isaga ku cilmiya alxamdulillah subxaanahu wa tacaala isaga ayaan muxuu ahaa aan ugu shukrinayna arrintaas iyada. sidoo kale daraasad oo ay sameeyeen oo weliba ay yiraahdeen inta hadda aan gaarnay natiijada hadda aan gaarnay maxsuulka aan gaarnay wax weyn ma aha yiraahdeen. daraasad kale oo dhawaan ay sameeyeen oo lagu sameeyay 700 oo ruux oo bugta ah oo jaamacadda Harvard lagu qabtay 700 oo ruux oo iyagoo lagu arkay cudurrada qaarkood cudurradaas oo ay ka qaadeen hawada ay ka qaadeen macnaha hawada waad arkaysaan maalmahan waxaa jira dagaalka Ukraine iyo waxaa jira muxuu ahaa iyo Ruushka dagaal ayaa ka dhacaya rasaas ayaa la tuuraya rasaastaas sun ayaa ka baxaysa dagaalada ka dhacaya Suuriya markaad soo qaadato Yemen markaad soo qaadato meelaha kale oo Afrika mid ah sida Ethiopia oo kale markaad soo qaadato dabridka ay sameynayaan muxuu ahaa dawladaha waaweyn dawlatuska sameynaya markaad soo qaadato oo kale dawladaha qaarkood oo iyagu tijaabinaya hubka nuclearka waxaas oo dhan warshadaha waaweyn qiiqa ka baxaya waxaas oo dhan waxay sumeynayaan hawada marka ay sumeeyaan suntaas waxay dib ugu soo noqonaysaa aadanihii ayay dib ugu soo laabanaysaa iyadoo ka soo raacaysa xagga ruuxa aadami oksijiinta uu qaadanayay uu neefsanayay ama biyaha uu cabayay ama cunada uu cunayay
waxay markaas jirkiisa ay ku noqonaysaa markaas cudur. dhaqaatiirta markay u dabagaleen marka arrintaas ay baaritaan ay ku sameeyeen ee dawo kasta ay kula tacaaleen waxay ogaadeen in lagula tacaali karo arrintaas inay tahay soonka oo keliya. kolkaasay waxay soo qaadeen 700 ruux waa la xareeyey. soonka ay soomaan dadka muslimiinta ah ayaa la faray inay soomaan oo cuntada ay ka joogsadaan iyo cabitaanka muddo 12 saacadood ah inay ka joogsadaan. kadib waxaa la ogaaday nimankaa iyaga ihi muddo yar kadib, dhowr bilood kadib, 3 bilood adiga ku dhawaad wax saas oo kale, waxaa la ogaaday cudurkii ku yimid xagga haragga ka asiibay ama maqaarka ka asiibay iyo cudurro kale oo macnaha lagu arkay dadkaas oo macnaha ay ka sheegteen oo ah daal fara badan inay dareemayaan, oo qaarkood lagu arkay gabow degdeg ah iyagoo aan gaarin xilligii gabowga aan lagu arkin. qaarkood oo muxuu ahaa iyadana ay keeni karto in dhimasho degdeg ah uu ku keeno sumoobidda ama wasaqoobidda hawada oo ay ka qaadeen waxyaabaha dhacaya. waxaa la arkay markii soonkaas ay bilaabeen muddo dhowr bilood ah kadib in jirkooda suntii ay kasii baxaysay, beerkina uu bilaabay inuu iska sifeeyo wixii ku jiray uur ku jirtada ee wasaqda ahayd inuu iska sifeeyo. subxaan allah. waxaa halkaas inooga muuqanaysa markaan runta isu sheegno in allah subxaanahu wa tacaala markii uu abuurayay qalfoofka jirka aadami markuu abuurayay in uu ogaa in waxyaabahaas ay ku imaanayaan. adigu hadda markaad gurigaaga joogto computer markaad soo iibsato ama mobilkaaga dhowr bilood kadib ama sanad kadib wuxuu u baahan yahay dayactir inaad ku samayso. marka allah subxaanahu wa tacaala markii uu nagu fardeelayay soonka bisha ramadaan ee barakaysan, allah xikmadda weyn uu ka lahaa waxay ahayd in soonka uu yahay mid lagu dayactirkii lagu dayactirayay jirkeenna. sababta wasaqoobidaas waxyaabahaas ka imaanaya hawada ka imaanaya iyo warshadaha iyo qiiqooda iyo sunta rasaasta iyo waxyaabahaas oo dhan, culimadan hadda waxay sheegeen in lagula tacaali karayo oo keliya soonka, oo soonka uu yahay dawo inuu u yahay. marka rabbigeen kor ahaaday waa tii uu ku yidhi kitaabkiisa qur'aanka kariimka wa an tasuumuu khayrun lakum. kolka uu la hadlayay dadka aanan karinayso oo lala hadlayay marka inaanay karin dadka aanan karin soonka in ay maalmo kale ay soomaan ama inay fidyo bixiyaan oo cunno ay dad kale siiyaan. laakiinse aayadda xaggeeda dambe maxaa lagu soo gabagabeeyey? allah subxaanahu wa tacaala muxuu kusoo gabagabeeyey? wa an tasuumuu inaad soomtaan ayaa khayrun lakum, ayaa idin khayr badan. marka walaalayaal, cilmiga casriga ah maanta ee ay sameeyeen dadka reer galbeedka ah, daraasadii ugu dambeysay ay sameeyeen ee weliba midii ugu dambeysay ay ka dhacday jaamacadda Harvard ee uu qoray professorkan Lunga la yiraahdo, waxa ay sheegaysaa in soonku uu yahay sayidkii dawooyinka. professor Lunga isagana wuxuu si khaas ah bugtadiisa iyagoo qaba kansarka uu ku daweeyaaba soonka haatan waqtigan xilligan aan joogno oo aan la hadlayo. marka ku dheeraan maayo insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa in aad ku dadaashaan soonka, aad ku dadaashaan maalinta isniinta ah iyo maalinta khamiista marka aad soonto. haddii sanadkii muxuu ahaa bisha ramadaan aanu ku dayactirayna jirkeenna, marka haddaad isniinta iyo khamiista aad ku darto soonkoodana waxay la micno tahay isbuuc weliba inaad dayactirayso jirkaaga. marka subxaan allah. marka خير أيام نسكوكنا إن شاء الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.